nabadgelya saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah magaalada Muqdisho oo wajahaysa cadaadiska al-shabaab ganacsiga daarta weyn ee Soobe oo amarkooda lagu xiray iyo ciidanka haramcad oo la wareegay daartaasi si looga difaaco weerar kaga yimaado ururka al-shabaab hadaba xogtii ugu dambeysay xaaladda magaalada Muqdisho oo cabsi weerar iyo qaraxyo ismidaamin ah laga cabsi qaba ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal waxaan idinla wadaagi doonaa maleeshiyada al-shabaab oo xoog looga saaray deegaano muhiim oo qaraxyada iyo weerarada ismidaaminta ay ka soo abaabuli jireen 13 sano kadib magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo maanta xor ah dabaaldegyo waaweyn oo socda iyo waliba geesiyaasha oo ku dul dikrinaya meydadka wax matarayaasha al-shabaab iyo wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse oo tuhun soo galay laguna amray inaysan dalka ka dhoofi karin intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii ofisan ayna ku horeeyne al-shabaab ayaa ku amartay dadka iska leh goobaha ganacsi ee ku yaala daarta Soobe inay xiraan cidii amarkaasi diidana tallaabo ay ka qaadi doonaan macada sababta rasmiga ee ka dambaysa arintan waxaasay u sheegeen dadka ay la soo xiriireen in sababta ay u sheegi doonaan marka ay amarka fuliyaan dadka iska leh goobaha ganacsi ee ku yaala daarta Soobe ayaa hadda isku diyaarinaya fulinta amarkaasi qaar kamid ah dadka iska leh goobaha ganacsiga ee la amray in la xiro oo qaariyay magacooda oo la hadlay warbaahinta qaar kamid ah dadka iska leh goobaha ganacsiga ee la amray in la xiro oo qariyay magacooda ayaa markaasi inoo sheegay in al-shabaab ay ku soo rogeen ganacsigaasi dhaqaale fara badan kuwaas wayna awoodin inay bixiyaan sidaasi ku qasabtay in amar lagu bixiyo inay gabi ahaanba ay daartaasi xiraan ilaa iyo hadda dawladda federaalka arintani kama hadlin waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamo badan oo ka tirsan haramcad la geeyay goobaha ganacsiga si weerar al-shabaab looga difaaco ururka al-shabaab oo culays dagaal ka soo fuulay goobaha ama gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa bilaabay inay cadaadis saaraan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho waxaa muuqanaysa in awoodda al-shabaab ay u soo wareegtay magaalada Muqdisho hay'adaha amniga magaalada ayaa heegan buuxa la geliyay si looga hortago weerarada maleeshiyada al-shabaab ka imaanaya taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isugu yeeray hay'adaha amniga ee nabad sugidda ayaa ku amray inay kordhiyaan xuraansiga iyo waliba helisa xogta ku aadan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay damacsan yihiin inay ka fuliyaan magaalada Muqdisho xog gaar ah oo aan helnay ayaa sheegaysa in amiiro iyo waliba maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab oo ka soo firxaday dagaalada xooga badan ee ka socda gobolada dalka ay soo gaareen magaalada Muqdisho kuwaas oo bilaabay inay cadaadis saaraan shacabka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ganacsiga iska leh Mahad Maxamed Salaad ayaa habeen ka hor kulan uu la qaatay saraakiisha ciidamada Niisa wuxuu amar ku bixiyay in la badiyo howlgalada looga horjeedo qaraxyada iyo waliba maleeshiyada al-shabaab si gacanta loogu soo dhigo kuwa ku dhuumaalaysanaya magaalada Muqdisho taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu markaasi amarkan uu u bixiyay si looga hortago weerar markaasi al-shabaabku ay la damacsan yihiin magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelo iyo xarumo dawladeed oo ku yaala isla magaalada tan Mahad Salaad ayaa ilaa hadda markaasi aanu qaaday wax tallaabo ah oo looga hortagayo qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho isagoo ku mashquulsan siyaasad iyo arrimo ku aadan in weerar lagu qaado siyaasiyiintii hore ee dawladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kale xogo sirdoon oo helnay ayaa sheegay in xubno Niisa ka tirsanaa oo gacan saar la lahaa taliskii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay isaga carareen dalka qaarkood ay hadda ku sugan yihiin dalka Turkiga kuwaas oo ka cabsaday weerar ka yimaado markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo kalsooni buuxda ka haysta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la yimid qorshe cusub oo dagaal adag lagu qaadayo haraadigi Farmaajo iyo ururka al-shabaab sida ay xaqiijiyeen ila wargala ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa Niisa ayaa la sheegay inay markaasi qabqabteen saraakiil hore uga tirsanaa maamulkii ama taliskii madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca kalena hadii aynu aadno howlgalada xoogan ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waxay sheegayaan in ururka al-shabaab laga saaray deegaano muhiim ah kuwaas oo muddo 13 sano go'doon ugu jiray gacanta ururka al-shabaab
deegaanadan maanta la xoreeyay ayaa waxaa la sheegay inay muhiim u ahayd ururka al-shabaab isla markaana istiraatiijiyad ay u lahayd dagaalada ay ka fulinayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. militariga Soomaaliya oo ay la socdaan Maleeshiya deegaanka ayaa dagaal ba'an kula jiray al-shabaab dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana la soo warinayaa khasaare nafeed oo baaxad leh. dagaalka ayaa boqolaal maleeshiya looga dilay kooxda al-shabaab inkastoo ciidamada dawladda iyo kuwa shacabku uu dhankooda khasaare gaaray balse aanu xooganeyn sida midka al-shabaab la gaarsiiyay. militariga Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka ay ka wadaan gobolka Hiiraan ay haatan diiradda ku saarayaan sidii la isugu furi lahaa wadada u dhaxaysa magaalooyinka Beledweyne iyo Buulaburde oo muddo sanado ah kala gooyeen ururka al-shabaab. hadalka militariga ayaa ku soo beegmaya iyadoo deegaano hoostaga degmooyinka Maxaas, Buulaburde iyo waliba Matabaan ee gobolka Hiiraan lagala wareegay al-shabaab. deegaanada laga saaray al-shabaab waxaa ka mid ah Teedaan, Hees, Sagal, Geed Samo iyo waliba Yoomaan iyo waliba Aboorey. waxaa kaloo lagu guuleystay in la isku furo wadooyinka u dhaxeeya magaalooyinka Beledweyne, Matabaan iyo Maxaas. dagaalka ayaa sidoo kale u sii fiday dhinaca deegaanka Halgan halkaas oo shalay lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan guutada 5aad ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Buurane Camal oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jira deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan waxay ku dileen 5 dhagar qabo oo ka tirsan ururka al-shabaab. sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegay deegaanka Booco oo ku dhawaad 50 kiiloomitir oo dhanka koonfur uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ciidamada ayaa lagu soo waramayaa inay gudaha u galeen deegaankaas oo muddo 13 sano maamulayeen xoogaga al-shabaab. ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in wax dagaal uusan ka dhicin halkaasi isla markaana xubno al-shabaab ay isaga carareen ka hor inta aysan ciidamada dawladda halkaasi gaarin. warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in deegaanka Booco ay fariisimo iyo maxkamada ku lahaayeen al-shabaab ayna ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo dilalka ka dhaca gobolka Hiiraan. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo howlgalka qayb ka ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay deganaan muujiyaan ayna la shaqeeyaan ciidamada dawladda ee maanta la wareegay gacan ku haynta deegaankaasi weyn ee Booco. xaafadda ama xaaladda ayaa haatan mid kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqi laga dareemayaa koonfurta Beledweyne halkaas oo ka socdaan abaabuleys ka soo horjeeda. ugu dambeyntiina warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in xog la helay la ogaaday in markaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare uu amar culus ku bixiyay oo ku wajahan wasiirada xukuumadda ka tirsan. akhbaaraadkan helnay ayaa ku waramaya in amar la duldhigay golaha wasiirada isagoo ra'iisul wasaare Xamse faray in wasiir aan ka fasax qaadan isaga aanu dalka ka bixi karin. ilaa hadda ma cad sababta ka dambaysa arrintan hase yeeshee wasiirada doonaya inay dibadda u safraan ayaa hadda kadib warqad fasax u qoran doona xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. shaqaalaha dawladda oo kaliya ayaa kolkii hore amarkan ugu saarnaa inay fasax ka qaataan xarumaha ay ka shaqeynayaan kolka ay dhoofayaan. ila wareedyo hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in la ogaaday wasiirada qaar xiliyada ay safarada dibadda aadaan ay hore wafdigooda u raaciyaan dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jiro oo lacag ka qaataan sidaasna dalalka ay ku tagaan isku dhiiba. amarkan ayaa ku cusub dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarahana uu ka yahay Xamse Cabdi Bare. guud ahaan daawadayaal warka aad kala socoteen channelkan waa naga inta.